إلا كرديو والشر هشيس ودارات كي مركي قف ديدين أو تشبينيو ما نقول بهدل لي يرى أضياء الحجلين قرمو قرنك الصومال نقوني متابق على قرمو نقوني حرك إلا قيمية ساسا دلو نقوني واي دكتور كباسي ما الله أركي كرا إن إمك نقوني سو أو أد كل دفاعي سو مدحوينها الصومالي لان دوديسا أو أضافينكي حكومة ما أضافينكي مدحوينها أد متليسا هالقضاء أد مدحوينها كل دفاعي قدقة ديوان قلين تمركي الأنسحيي محلو أنسحي وحلو أنسحي معارضي محافظ ولا أنسحي هاي سود محلو أنسحيين حير فورتين نقاشية الأنسحي حير فورتين نقاشية هدان حير تشرين قدقة ديوان قلين انت حيرك أي كل رقميان نقاشية اللي أنسحي ومحي وقلنا كل حير مجرو واي سياسة تاريخين لهذا تاريخها إلى الدكتور محمد عبد قبوس وركي سهن مركي ودعي تاجرياشي سووا كوريتي حسبي أضب إصابة أظن سياسة دي وصبح ومناط أول الله مردم بحسبي أضب وركي قرن مركز سمايسي إيه كل مية لبهودي وحا تاجرياش هذه تري كل مية تاجري مركي دم وحا تري ريالة وانك استغفر الله سنة haddana siiraay markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxa tiri haddana adduunka ummadda intaana sameey waxa tiri haddana astaghfirullah inaan siiraay dhisay way haddana ururkii barwaaqan sameynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabaa in haddana tira muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran haday dhahan mid way waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareysay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoo doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhaxanaanad ka qayb galay su'aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaah goormaad xisbiga wadani ka digir marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galiyaan dastuurka dambi bay ka galiyaan xeerarka dalka dambi bay ka galiyaan haday afkooda ka soo baxdo eray waan dhexdhexaadino saasan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiyo waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhismayno waxaan beela ayaan raali gelinayna marka qaran dhismayno dawlad dhismayno waxaan dhisaynaa beelulba in mar faaskeeda soo qaadato ay tiraado haddaan la yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkan cabanaya ama xisbigan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in Google fidiyo wada hadlaan de gooshi wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci inta Soomaaliland istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo Google wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka uu furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxa leeyahay nidaamka la soo maray oo dhan dictator wuxuu arrin khalada oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictator ma waxaad ka dhaxsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha haray intooda badan ayaa doorashada waxayna dhici kartaa November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid ku sameeyay lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukuumo fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodiga markay fadhiistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaaka iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad إلا كرديو والشر هشيس ودارات كي مركي قف ديدين أو تشبينيو ما نقول بهدل لي يرى أضياء الحجلين قرمو قرنك الصومال نقوني متابق على
goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasaa dal lagu noqonaya way doctor Gaboose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Somaliland doodiisa ah oo aad afayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaridi maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay doctor Maxamed Cabdi Gaboose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololay mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirkii daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaanad sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay way haddana ururkii barwaaqan sameynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabaa in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareejisay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoo doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhaxanaanad ka qayb galay su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdillah goormaad xisbiga wadani ka digasho marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galayaan dastuurka dambi bay ka galayaan xeerarka dalka dambi bay ka galayaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadinoo saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadaya waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhismayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhismayno dawlad dhismayno waxaan dhisaynaa beel walba in mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol u fidiyo wada hadlaan de gogosha wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaas oo meel istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex bixeen ma waxa leeday nidaamka la soo maray oo dhan dictor wuxuu arrin khalad ah oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictor ma waxaad ka dhaxsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukumo fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodii iyaga markay fariistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaakal iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yiraahdo odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasaa dal lagu noqonaya way doctor Gaboose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Somaliland doodiisa ah oo aad afayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay
maxaa loo ansixiyey waxaa loo ansixiyey mucaaradii maxaafid waa la ansixiyey hay soo dib maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyey xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyey waa maxay waa qolada kule xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay taariikhaha ay leedahay doctor maxamed cabdi gaboose ururkii sahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyey xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasaddii waad ka baxday umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiyey taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaanad sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay waay haddana ururkii barwaaqan samaynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabaa in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mata waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardarayay waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyey markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareejisay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhexanaanad ka qayb galay su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digir marka odayaashaan soo halkaa ma joogno waxa weeyaan dadka dembi bay ka galayaan dastuurka dembi bay ka galayaan xeerarka dalka dembi bay ka galayaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadinoo saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda leela qaadiya waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran dee marka dhisimayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhisimayno dowlad dhisimayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la ii yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar wuu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyey ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol u fidiyo wada hadlaan de gogoshi wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaasoo meelood istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxaad leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictore wuxuu arrin khalad ah oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictore maaha ma waxaad ka dhacsan iyadoo commissionkii la soo celiyey oo golayaashii ay soo celiyeen oo weliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici kartaa November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid samayn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaamayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukumo fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodii iyaga markay fariistaan xeerkooda qoray hay madaxweynaha siiyo kale laakiin xeerkooda qoray masaakal iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yaraado odayaal ha dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasa dal lagu noqonaya way doctor Gaboose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo aad afayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradii maxaafid waa la ansixiyay hay soo dib maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kule xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay
taariikhaha leedahay doctor maxamed cabdi gaboose ururkii sahan markii uu dhacay taageerayaashiisa waxa uu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daaqliga noqotay markaad haddana shaqadiis ka casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaanad sameyn waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay waay haddana ururkii barwaaqan samaynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabo in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareejisay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhexanaanad ka qayb galay su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digir marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galiyaan dastuurka dambi bay ka galiyaan xeerarka dalka dambi bay ka galiyaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadino saasan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiyo waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhismayn waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhismayno dawlad dhismayno waxaan dhisaynaa beelulba in mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol u fidiyo wada hadlaan de gogoshii wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaas oo meel istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxaan leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictore wuxuu arrin khalada oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictore maaha waxaad ka dhaxsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid ku sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaamayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankan madaxweynaha xukuumadda fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodii iyaga markay fariistaan xeerkooda qoray hay madaxweynaha siiyo kale laakiin xeerkooda qoray masaakil iyaga sharcigooda ay Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yaraado odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqala goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo taasa dal lagu noqonaya way doctor Gaboose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo aad afayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradii maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay taariikhaha leedahay doctor maxamed cabdi gaboose ururkii sahan markii uu dhacay taageerayaashiisa waxa uu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray
markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daaqliga noqotay markaad haddana shaqadiis ka casishay waxaad tiri haddana ururka ummadda intaanad sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay waay haddana ururkii barwaaqan sameynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabo in haddana tira muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareysay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoo doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhaxanaanad ka qayb galay su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digir marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galayaan dastuurka dambi bay ka galayaan xeerarka dalka dambi bay ka galayaan hadday afkooda ka soo baxdo eray waan dhexdhexaadino saasan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiyo waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhisimaan waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhisimayno dawlad dhisimayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la ii yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol fidiyo wada hadlaan de gogosha wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci inta soo meel istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhaxbixeen ma waxaan leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictore wuxuu arrin khalada oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictore ma waxaad ka dhacsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid ku sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankan madaxweynaha xukuumadda fasaxay 2 bilood oo fasaxo sharcigoodiga markay fariistaan xeerkooda qoray ay madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaakal iyaga sharcigooda ay Soomaa yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yaraado odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasaa dal lagu noqonaya way doctor Kabose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo adafayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradii maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay taariikhaha leedahay doctor maxamed cabdi Kabose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daaqliga noqotay markaad haddana shaqadiis ka casishay waxaad tiri haddana ururka ummadda intaanad sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay waay haddana ururkii barwaaqan sameynaysa
haddii aad dhacdo ma laga yaabo in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareysay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhaxanaanad ka qayb galay su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digasho marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galayaan dastuurka dambi bay ka galayaan xeerarka dalka dambi bay ka galayaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadino saasan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiyo waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhismayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhismayno dawlad dhismayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol fidiyo wada hadlaan de gogosha wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci inta soo meelood istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxa leeday nidaamka la soo maray oo dhan dictor wuxuu arrin khalada oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictor ma waxaad ka dhacsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaamayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankan madaxweynaha xukumo fasaxsi 2 bilood fasax waa sharcigoodiiga markay fariistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaaka iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yiraahdo odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasaa dal lagu noqonaya way doctor Kabose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo adafayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradkii maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay taariikhaha leedahay doctor maxamed cabdi Kabose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirkii daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaana sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay way haddana ururkii barwaaqan sameynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabo in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareysay wadani
xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhexana aanad ka qayb galin su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digasho marka odayaashaan su-aalkaa ma joogno waxa weeyaan dadka dembi bay ka gelayaan dastuurka dembi bay ka gelayaan xeerarka dalka dembi bay ka gelayaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadinoo saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda leela qaadiya waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran dee marka dhisi mayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhisi mayno dowlad dhisi mayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la ii yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyey ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol fidiyo wada hadlaan de gogosha wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaasoo meelood istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxaan leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictore wuxuu arrin khalada oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictore maaha ma waxaad ka dhacsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo weliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorasho madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan weli lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukumo fasaxsi 2 bilood oo fasax waa sharcigoodiiga markay fariistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray ma saaka iyaga sharcigooda Soomaa yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yiraahdo odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasa dal lagu noqonay way doctor Kabose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo adafayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradii maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay taariikhaha leedahay doctor maxamed cabdi Kabose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirkii daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaanad samay waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay waay haddana ururkii barwaaqan samaynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabaa in haddana tiraa muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu wuu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareejisay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhexana aanad ka qayb galin su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi goormaad xisbiga wadani ka digasho marka odayaashaan su-aalkaa ma joogno waxa weeyaan dadka dembi bay ka gelayaan
dastuurka dembi bay ka geliyaan xeerarka dalka dembi bay ka geliyaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadino saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiya waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya doorashadii madaxtooyada qaran de marka dhismayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhismayno dawlad dhismayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar uu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol fidiyo wada hadlaan de gogosha wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaas oo meel istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxa leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictator wuxuu arrin khalad ah oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad digto maaha ma waxaad ka dhaxsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorasho madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid sameyn lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukumo fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodii iyaga markay fadhiistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaaka iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yiraahdo odayaal dhex galeen goormu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasa dal lagu noqonay way doctor Bosse ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo adafayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaridi maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay doctor Maxamed Cabdi Bosse ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii wad ka baxday umanaad ololayn mar dambe xisbigii ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay ee aad soo saartay ee gobolada bariga gudoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirkii daaqliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaad tiri haddana ururkii ummadda intaana sameey waxaad tiri haddana astaghfirullah inaan siiraaye dhisay way haddana ururkii barwaaqan sameynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaabaa in haddana tira muuse astaghfirullah markii la yiraahdo madaxweynaha gardaran hadday dhahaan mid waxay eedeeyeen nin mise waxay eedeeyeen qaran dhan madaxweynuhu gardaray waxa oran karta maxkamad waxa oran karta xeerarka dalka haduu jabiyay markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareejisay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoo doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb galay shirarkoodii dambe ee golaha dhaxanaanad ka qayb galay su'aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah goormaad xisbiga wadani ka digir marka odayaashaan su'aalka ma joogno waxa weeyaan dadka dambi bay ka galiyaan dastuurka dambi bay ka galiyaan xeerarka dalka dambi bay ka galiyaan hadday afkooda ka soo baxdo erey waan dhexdhexaadino saasaan garanay oo la xiriirta qodob xeer waayo sharci jabin weeye maxkamadda la qaadiya waa 2010 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan sharciya
doorashadii madaxtooyada qaran dee marka dhisi mayno waxaan beela ayaan raali gelinaynaa marka qaran dhisi mayno dowlad dhisi mayno waxaan dhisaynaa beel walba inay mar faaskeeda soo qaadato ay tiraahdo haddaan la ii yeelin Soomaaliland jiri mayso qofkaan cabanaya ama xisbigaan cabanaya gar wuu yeelan karaa garna ma yeelan karo marka haddii waxa la isku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo da uma taalo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay'adaha loo sameeyay ay u dacwoon karaan ku difaacay in gogol u fidiyo wada hadlaan de gogashii wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaas oo meel istaagay wuxuu ka sheegay in uu u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fadhiistaan erga u diray uu la fadhiistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalka u furmay odayaasha ka dhex baxeen ma waxaan leedahay nidaamka la soo maray oo dhan dictor wuxuu arrin khalad ah oo aan sharci ahayn oo meelna ka soo gelin dhaqanka oo meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaanayn doodaadu ma sidaas aad dictor ma waxaad ka dhaxsan iyadoo commissionkii la soo celiyay oo golayaashii ay soo celiyeen oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha hare intooda badan ayaa doorasho madaxweyne dhici karta November commissionkii qaban lahaa diiwaangelinta commissionkii qaban lahayd cid sameeyay lahayd commissionkii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaamayso ayaan wali lahayn baarlamaankiina 2 sano ayaa la siiyay baarlamaankana madaxweynaha xukumo fasaxay 2 bilood oo fasax waa sharcigoodii iyaga markay fariistaan xeerkooda qoray ma madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray masaakal iyaga sharcigooda Soomaha yaa gudoomiye ka mucaarad in la kordhiyo waa shar heshiis wadareedkii markii qof diidan yahay oo uu jabinayo maalin walba haddii la yaraado odayaal ha dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonaya mid taabaqada goormuu noqonaya xeerka in la qiimeeyo saasa dal lagu noqonaya way Dr. Gabose ma loo arki karaa inaad imika noqonayso oo aad ku difaacayso madaxweynaha Soomaaliland doodiisa ah oo adafayeenkii xukuumadda ama afayeenkii madaxweynaha aad matalaysa halka dooda aad madaxweynaha ku difaacayso guddiga diiwaangelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaridi maxaafid waa la ansixiyay hay soo maxay u ansixiyeen xeer 14 dhaqaajiya la ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya haddaan xeer jirin guddigan diiwaangelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri ee loo ansixiyay waa maxay waa qolada kula xeer ma jiro way siyaasaddu taariikhay leedahay Dr. Maxamed Cabdi Gabose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii waa ka baxay umanaad ololayn mar dambe xisbigii ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiye taageeray markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaghfirullah sanay haddana siiraaye markaad dhistay